xafladani lagu daafurayay bangiga cusub ee East Africa Bank oo ah bangi cusub oo laga furay dalka Djibouti ayaa saaka waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dalka Djibouti oo ay weeliso marwadiisa Marwo Khadre Maxamuud Xayd waxa sidoo kale xafladani ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano iyo ganacsato ka kala yimid geeyiga ay degto Soomaalidu ee geeska Afrika iyo sidoo kale wadanada dibadda xafladani lagu daafurayay bangiga cusub ee East Africa Bank cusub ee East Africa Bank oo ah bangi cusub oo ay furatay shirkadda Dahabshiil ayaa noqon doona mid ka qayb qaadan doona horumarka dhaqaale ee dalka Djibouti oo ku socdo sanadadan dambe intii xafladan lagu guda jiray ayaa waxa ka hadlay maamulaha guud ee bangiga East Africa Bank oo sheegay inuu bankani ka qayb qaadan doono dhaqaalaha dalka Djibouti iyo sidoo kale maamulaha guud ee shirkadaha East Africa Cabdirashiid Maxamed Saciid Ducaale oo qaar badan ay maanta ka yimaadeen wadamo badan dhul badan oo Soomaalidu degto intuba inay horumarka dalka Djibouti ay gaadhay ay daawadaan oo ay ka qayb qaataan aad baan ugu faraxsanahay waan idinka mahad celinaynaa East Africa Bank Dahabshiil Group caalamka oo dhan bay ka shaqeeyaan Djibouti waxay u doorteen horumarka ay Djibouti ka gaadhay gobolada geeska Afrika oo runtii bad iyo cir iyo dhulba qayb weyn ka ah horumarka adduunka mashaariicdaanu ka qabanay Djibouti waxa kamid ah xafladan maanta kaliya maaha inaanu ka qayb qaadano cable-ka badda maray Deer Cable oo isaguna ilaa iyo Kenya badda hoosteeda maraya oo internetka ugu qaalisan gaarsiinaya dhammaan dhulka Soomaalidu ay degto si alla socotaan horumarku shaqo abuurku wuxuu qayb ka yahay dal walba horumarkiisa bangigan gabagabadii munaasabadan ayaa waxa hadal ka soo jeediyay madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele banka shaqadiisa anagu waan u bognay maxaa yeelay da'yaridiisa iyo hawsha uu qabtay iyo inta uu maal geliyay xisaabtii ninka director generalku uu qorayay waxa uu leeyahay lacag fara badan oo 230 bilyan oo Djibouti faranka ayaan gelinay wadanka ayuu leeyahay customerkii ama macaamiishayadiina way sii kordhayaan raallina way ka yihiin nin waliba sida uu doonayo labada system ee lagu shaqeeyo ay baananku ku shaqeeyaan haddii uu yahay bank taqliidi ah ama conventional ah ama international ah haddii uu yahay iyo haddii uu yahay habkii shareecada iyo islaamka labadaba banku waa u furan yahay dadkuna kolbatii uu raalli ka yahay baa lagula shaqeynaya taasina waxaanu waraysi la yeelanay gudoomiyaha rugta ganacsi ee Soomaaliya Maxamedin وعلى آله وصحبه وسلم وحن أدوق فرحسنا هاي ما أنت إن أنك سوق قريب قلنا إيست أفريكان بانك ولا جفرة دلك جيبوتي ونفرة مدحوينين غالي جاء مدن إسماعيل عمر قيلي مرودي سي أصحاب تورن إن لو الجوجين تاسو إنك سوق قريب قلنا كان عست الصوماليات أو بدن ملك سجران إن لو الجوجين بنك كان إيست أفريكا بان أو بنك عصب ولا جهر قليه دلك جيبوتي ayaa noqon doona mid ka qayb qaadanaya horumarka dhaqaale ee dalka Djibouti Maxamed Daahir Cable TV Djibouti